xogayaha xuquuqul insaanka xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid Umar Daahir Cilmi oo waraysi khaas maanta siinay telefishinka caalamiga ee Somali Cable ayaa ka hadlay saldhigga military ee laga hirgelinayo magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil isla markaana maanta ay ansixiyeen labada aqal gole ee guurtida iyo wakiilada Somaliland xogayaha Umar Daahir Cilmi oo hadalkiisa sii wata waxa uu mar kale ka digay khataraha uu keeni karo saldhigga military iyo dhibaatooyinka ku wajahan uu horseedi karo Somaliland iyo guud ahaanba geeska Afrika arrintaasi waa in aad looga taxadaro waa in la eego dhibaatooyin iyo faa'iidooyin wax ku jira waxaynu ogeyn saldhigga Berbera ee saldhigyada military in kan mid la mid ah laga sameeyay Djibouti inkastoo Djibouti ay tahay dawlad la ictiraafsan yahay innagana loo aqoonsan yahay gobollo ka mid ah Soomaaliya Djibouti markii ay imaaraadku kaga duulay Yemen ayay maaragtay iska rartay saldhiggii sidaas darteed Somaliland waxay ku taallaa marinbiyood muhiim ah oo dhinaca waqooyi kaga xiran badweynta Hindiya iyo wadamada bariga ee Asia dhinaca koonfurna Canal Suez-ki iyo Arab Peninsula ilaa Mediterranean Sea ilaa Pacific marka meel muhiim ah noolaa marka waa in aad looga taxadaro oo la eego dhibaatooyinka dhaqan-dhaqaale iyo midka siyaasadeed iyo midka military ee nagu leeyahay ila eego weeyay sidaas darteed waxaan aad iyo aad ula yaabanahay wasiirka madaxtooyada oo halkan uga yeeranayay ammaan darro iyo xuutiyiin baan iska celinaynaa maxay noo keenaya xuutiyiinta maxay naga dhaxeeyay haddaanad adigu inoogu yeedhayn waxay arrinkaasi mid muhiima maaha wax macquula maaha inaad nabadgelyo darro ka abuurto mandaqadan arrintaasoo saameyn weyn ku yeelanaysa gobolka geeska Afrika oo dhan si kastaba ahaatee saldhigga military ee laga hirgelinayay magaalada Berbera ayaa ahaa mid maalmihii ugu dambeeyay si aad looga hadalhayay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Somaliland